madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la dareena shacabkiisa shiricda san ee ku nool magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka ayaa waxa uu madaxweynuhu dadkaasi shiricda san loogu deeqay deeq xoolo nool ah oo maantaba deeqdaasi uu wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Yuusuf Jibriil barasaabka gobolka maayirka degmada oo ka wakiila madaxweynaha qaranku ay gaadhsiiyeen goobihii uu madaxweynaha qaranku ugu talagalay in la gaadhsiiyo deeqdan xoolaha ah oo ay kamid ahaayeen xarunta agoomaha Gabiley, xarunta daryeelka bulshada ee agoomaha, jeelka weyn ee Gabiley, ciidamada booliska iyo militariga, dhakhtarka dhimirka iyo isbitaalka TB-da oo madaxweynuhu ugu talagalay in lagu taakuleeyo dadka ku jira goobahaasi. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyay deeqdani ka timid madaxweynaha qaranka wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Yuusuf Jibriil. waxaan maanta halkan u joognaa waxa weeye inaan wejino deeq madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ugu deeqay bulshada inta ugu itaalka daran leh iyo dadka hawsha ugu badan ee bulshada oo ah marka koowaad laba xarumood oo agoomuhu ay leeyihiin iyo maaragtay xabsiga weyn ee jeelka, sidoo kale ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska, isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka TB-ga. madaxweynuhu wuxuu ugu deeqay xoolo nool oo ugu talagalay in loo qalo maaragtay nafaqeyntooda iyo ay qayb ka qaadato maaragtay. marka madaxweynaha waxa leeyahay madaxweyne aad baad mahadsan tahay adoo maaragtay dareemay baahida ay qabaan bulshooyinka ay taalka daran. xoolihii kale waa la wareejiyay, goob walbana waa lagu wareejiyay. waxaan leenahay madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay. qolyaha kalena waxaan leenahay madaxweynuhu mar walba uu ka warhayaa dadka jilicda san leh iyo dadka ku jira shaqada maaragtay adag ee bulshada u baahan tahay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley ka magaalada Gabiley oo uga mahadnaqay madaxweynaha qaranka deeqdan uu soo gaadhsiiyay. waxaan horta uga mahad celinayaa dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolka Gabiley sidii diiranayd ee kalgacalka iyo wanaagga lahayd runtii ay soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii safar shaqo ku yimid gobolka Gabiley. dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay. madaxweynuhu runtii wuxuu xasuustay bulshadiisii qayb ka mid ah oo runtii haddii ay noqon lahayd xarumaha agoomaha iyo cisbitaalada iyo jeelka iyo runtii askarta kala duwan ee ku nool gobolka haddii ay noqon lahayd booliiska iyo asluubta iyo militariga, inuu xusuusto maalintaa oo uu deeq xoolo noola runtii uu annagu aan uga wakiilnahay aanu maanta ku wareejinayno xarumaha loogu talagalay. aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahad celinayaa. ugu horeyn waxaan jeclahay runtii inaan halkan uga mahad celino dadweynaha reer Gabiley guud ahaan gobolka hadday tahay Arabsiyo, Gabiley ilaa Kalabayd, sidii sharafta iyo qiimaha lahayd ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha qaranka Somaliland booqashada ku yimi safarka shalay toole gobolka maantana ka anbabaxay. madaxweynaha Somaliland aad baan uga mahad celinaynaa runtii deeqdan aanu maanta halkan ku wareejinayno oo uu yidhi dadka jilicda san ee xarumaha dawliga ah ku jira loo qaybiyo xoolo nool oo madaxweynuhu ugu talagalay 6 xarumood oo kala duwan oo ku yaala magaalada. labada xarumood ee agoomaha, isbitaalka dhimirka, ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska, jeelka hadday tahay ciidanka asluubta iyo maxaabiista, isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka TB-da. runtii 6da gooboodba waa meelaha runtii howlaha ugu mudan ay ka socdaan dadka ugu jilicda sanna ay joogaan. aad baan uga mahad celinaynaa runtii madaxweynaha deeqda qiimaha leh uu soo siiyey. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kala duwan ee la gaadhsiiyey deeqdani ka timid madaxweynaha qaranka. halkan waa xarunta agoomaha gobolka Gabiley. waxaa maantana soo gaadhay deeq adhay ah oo 10 neef ah. deeqdaasi oo ma garanaysayay uu noogu soo deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waanu ka guddoonay madaxdana soo gaadhsiisay. insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa madaxweynaha deeqda xoolaha ee uu soo waayaan la xaaji TV-ga qaranka Gabiley.